wasiirka shidaalka Soomaaliya geeska amba juqraafi ahaan meeshan kulnaano amba geopoliticska maxaa saameyn oo nagu yeelan kara geeska meeshan ku naalno iyo dadka nagu wadamada nagu hareeraysan su'aasha koowaad waa taas amba dib u dhac ay nagu keeni karaan su'aasha kale waxa weeyaan heshiiska baydhabo maadaama dastuurka uu yahay qabiyo wali yahay haddii teeramada soo socota aan tusuq la dhameystirin ma dhaqan geli kara heshiiskaas oo ma noqon kara mid heshiisya kale oo caalami ah oo lala geli karo oo tusuqka uusan wali haduusan dhameystirin wuxuu sheegay heshiiskii uu ka dhacay Baydhabo in loo qabsaday shidaalka 55 iyo 45 ma jira miyaa tusuqka ma qeexay tusuqkeena qaabka loo qaybsanayo shidaalka su'aasheeda haddii aan si guud aan u guda galo ama aan soo koobo sida aan wada ognahay iskuulada waxa ka jira gumaysi dadban oo dhanka maadooyinka la qaata ah wali ma arkin intaan iskuul dhiganayay wax qaf shidaalka ibara marka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka intii aad joogtay wasaaradda ma jirtay wada tashiyo badan aad la sameysay wasaaradda waxbarashada oo ku aadan in aan barano shidaalka iyo waxyaabaha dalkeena muhiimka ah aanu nasiyay laakiin wasiir haddaan qiimeeyay presentation kaage waxaan rabaa balsaan u qiimeeyay inaan ku saxsanay inaad khaldanahay inaad ila aragto markaad sheegtay dhibaato challenge badan baad sheegtay tabardaraad sheegtay ammaan daraad sheegtay institution habacsanaan oo jirin baad sheegtay intaas markii la isku daro iyo shidaalka sawsaarkiisa oo wax badan u baahan fariintaadu miyaanay muujinayn inaan Soomaaliya aan habbooneen hadda in shidaal soo saaritaankiisa laga hadlo thank you very much marka wasiirka waxaan leeyahay ma santahay cilmiga farabadna oo ka hadashay iyo waxyaabaha nala wadaagtay hal su'aal oo kooban aan rabaa inaan wasiirka weydiiyo waxa jiro misconception is laga aaminsan yahay shidaalka Soomaalida ay ka aaminsan yihiin halka su'aal waxay tahay Soomaalida waxay dhahaan hadii shidaal la soo saar ama macdan la soo saar wadanka dhibaata ka dhacayso cimilada xumaanayso dhul gariira dhacay waxyaabo badan ee saameena oo ku yeelana taas ma saxantaan leena waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal khayr Allah siiyo Soomaalida waxyaalo iska rumaysan tahay ayaa jira oo la leeyahay shidaalka Soomaaliya waa la baari lahaa laakiin sharikado waaweyn oo Mareykan iyo awal ayaa heshiisyo waagi siyaad barre iyo waagi ku horeeyba la galay waxa marka xoogaa cagta nagu haya iyaga kamid ah marka wax noocyadaas oo kale raadadka ma aragtay waxa kale la sheegaa pressure oo indirect ah in dawladaha Gulf states ay ka jiraan oonan ogoleen Soomaaliya in wax laga soo saaro inta joogtay wax dareen noocaas ah ma ku soo galeen waa maasantahay keenaya in dabcan doctor Diiban iyo rag badan oo waxbarashada iyo aweys raga joogo in mana waxyaabaha qaar kood aan culays kala saar mana hadda statistical marka la fiiriyo social science-ka uu ka badan yahay mana waxaan pure science uu ka badan yahay waxaana keenaya duruufaha markaas jira ayaa keenay markaan imaanay waan dareemay in arintaas ay jiraan waxaan ku faraxsanahay in aan 15 arday u dirnay Banaadir University si ay kaga bartaan geology ay kaga bartaan 15 kan ay yihiin shaqaalaha wasaaradda yihiin ay fasax ka qaataan wasaaradda shaqadooda ay wata ay laakiin ka qayb galaan jaamacadda si ay u soo bartaan geology u soo bartaan sidoo kale maana Shell Exxon Mobil waxaan ku leeshiinay in scholarship noo siiyaan maanaha dad ay noo siiyaan ayna noqdaan tartan xur ah oo xalaal ah oo aan anaga aan shaqo ku yeeran waxaan ku faraxsanahay maanaha qofka kulligiin wada taqaanaan Dr. Ali Muqdisho University wiilkiisa inuu kamid ah ardaydii ku guuleysatay waxbarashadaas maanta uu soo dhameeyay wasaaraddan uu joogo oo maanaha uu ku soo qaatay abadii dandiya lagu kala qaadanayo soo marka maadaama anaga aanan haysan hay'adii loo baahnaa waxaan isku daynaa banaanka inaan ka helno kuwii aan heli karnayna dalka gudihiisa inaan dalka gudihiisa aan ku tababarno arinta oo environment-ga maanaha waa loo baahan yahay environment-ga ama noqoto xoolaha noqoto ama kalluumaysiga noqoto ama bani aadamka noqoto hadda Kenya kale hadii aad rabto petrol station aad furato iska dhaaf shidaal baaraysa oo qudaysa oo iska dhaaf hadii aad rabto petrol station inaad furato kow waxa laga baahan yahay environmental impact assessment inaad soo sameyso oo warqad ka soo qaadato waxa la fiirinaa baawarta imaan doonto buuqa ay abuuri karaan pollution ay sameynayaan oilka iyo oil macnaha gaaska laga bedela macnaha bani aadamka meesha imaanay waxa soo dhan la fiirinaa waa petrol station marka la furayo imagine marka la yiraahdo shidaal la soo saara marka wuxuu u baahan yahay environmental impact assessment badan ayuu u baahan yahay laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeya in horta sharciga la sameeyo
maana environmental actiga in la sameeyo then environmental agency la sameeyo oo madax bannaan oo arrimahaas la socoto ayaa looga maarmayn معناها أرنتها معناها دولة فدرالك كريت حق نقول هذا إن أي ماموشة معناها شركة شيء كبيرة واحد كسب بحي وحنفيها هدية هذا حسين وحليه هاي قيرات كصومالية وحاول له ضد الصوماليات وحنا وكيلك دولة الصومالية دولة قبلية وحنا إسلام مامورية دولة رح دولة قبلية صومالك تا أوتوماتيك المركب هي موجودة إن joint ownership joint management إن تا موجودة سا أرنتي هاي معناها دكتور ليبان نقول فيديو هاي معناها كل سجال بقول سجاشن كشيء اللي كري سامين بنقوله طبعا مركي معناها كل سجال بقول سجاشن كي وضمن الشدال كسوق سعر جري أدونك واحد الناين لكن نك ما أنت أكثر موبايل حكومة يضد كشارع حكومة صبحي مركي سوق عن ما أدونك إنفيريان almost هذا أفريقيا ودن كونتني أفر وضمن وحرقة بس صدق ما تكبت هذين الشدال سوق سعر معناها تكنولوجيا أدونك وصي برتي معناها أول ستريد على لوقل جري هذا السايد على لوقدا فراكشن على وحياة فرق بدل على marka baahidii loo qabay macnaha maanta looma qabo shidaalka sidoo kale adduunka technology kala soo kordhayo macnaha waxaan la yaqaan macnaha alternative energy macnaha oo ama solar ha ahaado ama ha ahaado wind ha ahaado ayaa soo koray soo marka laftigooda saameyn ayay leeyihiin marka ma filaayo in shirkadaha laakiin shirkadaha waxay fiirinayaan waa business people waa imisa iga galayso imisa iskira sidoo kale marka macnaha uu downtown ku jiro macnaha shidaalku uu depressed yahay oo fuusadii hadda markii la gaday 140 oo kale mana shirkadaha waxay ku dhiiranayaan markaas inay shidaalka ay soo saamiyaan laakiin hadda kale markuu konton iyo marayo manaha qofkii wuxuu ka fikiraa mana qarashka ka galaayo waqtiga ka galaa riskiga aad qaadanayso aydan dhibkeeda midda kale mana Soomaaliya caqabadaha oo anaga hor yaalo waxa kamid ah wacali aadan arrintan soo laabana the more adiga shuruuc ka maqan yihiin shirkadaha ku imaanaya waa the higher premium ama insurance ay bixinayaan fiiri shirkadahan inta iska imaadaan iskama sameeyaan wax kulligood insurance ku jiraan mana ayda dhaqankooda waxa waaye wax walba asmeynaysa insurance ay gelinaysa si hadii ay wax qadamaan cid kale ay mas'uuliyad u qaado aydan marka maxay sameynayaan shirkadii wadanka waa imaanaya maleeyo sharci may environmental security xaq maxay kan kalkiin may xaq ma sama okay automatically premium kor u kaco premium markuu kor u kaco insurance markuu kor u kaco shirkadii inay marka maal gashato xoolo kuma dhiiranayso macna waxay ka fikiraysaa mana qarashkiga ku badnaana arintan ah manaha wadamada golofka iyo saameyn marguleed saadaati sheegay kulli saameyn waa isku wada leeyahay laakiinse manaha hadda caalamka oo dhan shidaal soo saar isu wada bedelooya marka macna badan ma sameynayso Soomaaliya ka cilna kaliya inay soo saarto ayadoo Ethiopia soo saaraysa Kenya soo saaraysa Uganda soo saaraysa Tanzania soo saaraysa Mozambique soo saaraysa and so on ilaa iyo kor ka aad oo dhan ay soo wada saaraan ilaa iyo Gabon ka tagto Biryan almost hadda Africa oo dhan konton afar wadan waxa laga yaabaa 30 wadan kamid hadda inay shidaal soo saaraan mana technology adduunku uu sii bartay manaha awal straight loo qodjiri hada side loo qada fraction arsamay waxyaabo fara badan arsamay marka baahidii loo qabay manaha maanta looma qabo shidaalka sidoo kale adduunka technology kala soo kordhayo manaha waxaan la yaqaan manaha alternative energy manaha oo ama solar ha ahaado ama ha ahaado wind ha ahaado ayaa soo koray soo marka laftigooda saameyn ayay leeyihiin marka ma filaayo in shirkadaha laakiin shirkadaha waxay fiirinayaan waa business people waa imisa iga galayso imisa iskira sidoo kale marka macnaha uu downtown ku jiro macnaha shidaalku uu depressed yahay oo fuusadii hadda markii la gaday 140 oo kale mana shirkadaha waxay ku dhiiranayaan markaas inay shidaalka ay soo saamiyaan laakiin hadda kale markuu konton iyo marayo manaha qofkii wuxuu ka fikiraa mana qarashka ka galaayo waqtiga ka galaa riskiga aad qaadanayso aydan dhibkeeda midda kale mana Soomaaliya caqabadaha oo anaga hor yaalo waxa kamid ah wacali aadan arrintan soo laabana the more adiga shuruuc ka maqan yihiin shirkadaha ku imaanaya waa the higher premium ama insurance ay bixinayaan fiiri shirkadahan inta iska imaadaan iskama sameeyaan wax kulligood insurance ku jiraan mana ayda dhaqankooda waxa waaye wax walba asmeynaysa insurance ay gelinaysa si hadii ay wax qadamaan cid kale ay mas'uuliyad u qaado aydan marka maxay sameynayaan shirkadii wadanka waa imaanaya maleeyo sharci may environmental security xaq maxay kan kalkiin may xaq ma sama okay automatically premium kor u kaco premium markuu kor u kaco insurance markuu kor u kaco shirkadii inay marka maal gashato xoolo kuma dhiiranayso macna waxay ka fikiraysaa mana qarashkiga ku badnaana arintan ah manaha wadamada golofka iyo saameyn marguleed saadaati sheegay kulli saameyn waa isku wada leeyahay laakiinse manaha hadda caalamka oo dhan shidaal soo saar isu wada bedelooya marka macna badan ma sameynayso Soomaaliya ka cilna kaliya inay soo saarto ayadoo Ethiopia soo saaraysa Kenya soo saaraysa Uganda soo saaraysa Tanzania soo saaraysa Mozambique soo saaraysa and so on ilaa iyo kor ka aad oo dhan ay soo wada saaraan ilaa iyo Gabon ka tagto manaha waxa kaliya inay anaga naga ciliyaan wax macna badan sameynayso
markii intaas ku soo gabagabeyna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii runtii waqti badan geliyay barnaamijkaas u taabageli lahaa waxaan rabaa sidoo kale inaan hambali yiraahdo dhalinyaradii hablaha ahay ee barnaamijkan oo qabana tababarkii ka faa'iidaystay ee maanta shahaadada la guddoonsiiyey iyo sidoo kale dhalinyaradii wiilasha ahay ee barnaamijka nabadda ku la xiriiray oo aan qabanay ka faa'iidaystay maantana shahaadada la guddoonsiiyey intaa kadib waxaan u malaynayaa barnaamijkan maanta bilowna ku saabsan yahay ujeedkiisu muxuu yahay maxaa loo gol leeyahay waxaa looga hadli doonaa su-aalahaas iyo inaan la xiriira waxaa ka hadlaya malaynayaa saaxiibka cabdirasaaq ma raba inaan kusii dheeraado laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo soomaali baan nahay oo haddii wax la qabanayo fasiraad badan baa loo sameeyaa barnaamijkan aan qabanayno ujeedkiisu wuxuu yahay dalkaani si aan la socona dhammaantaynba hoggaankiisa markaan ka hadlayno nooma dhisna institutionist qofka lagu soo diyaariyo adduunyada waxaa ka jira xisbiyo iyo hay-ado qofka soo diyaariya lagu soo tababaro muddo dheerna waayo aragnimo hogaamineed soo yeesha la garan karo maanta waxaa la rabaa in la qabto cidda kusoo dhici karto tusaale ahaan dalka maanta aynu joogno haddii la yidhaha maanta doorashaa dhacayso cid naga mida oo saadaalin karta yaa hogaanka kusoo bixi kara ma jiraan sababtu waxay tahay institutionna soo diyaarsada dad oo la yaqaano oo runtii backup u noqon kara ee la dhihi kara hebel qualified u ah oo soo bixi kara oo la saadaalin kara ma jiraan sidaa darteed waxaa nagu badan in qof cusub marba uu yimaado qofkii markuu imaanayo meesha waxaa maskaxdiisa ka gooxaya expectation uu qabo oo is leeyahay institutionka tegiisa nooca weeye markii uu tago oo wax badan uu la kulmo waxaa laga yaabaa wuxuu filanaya wax ka duwan inuu la kulmo inuu soo u malaysanayo si ka duwan ay ku noqdaan challenge iyo furas bay u yimaadaan haddana asigoo la qabsaday shaqadii oo hadda fahma baa laga qaadaa kumana soo noqdo waayo arrimadu kasbada marka asigana meel uu platform uu ku soo bandhigo aqoonyahanka Soomaaliyeed kula wadaago waddanka kama jiraan waxaa dhacaysa marka mar walba inaan ku jirno tijaabo iyo waxaan garanaynin iyo waxa ka imaan doona qofku laftigiisa cabsi badan ka qabo waxaa isleeyahay marka barnaamijka noocaan oo maanta aanu bilownay wuxuu suurto gelinayaa dadka waayo-aragnimada kasbaday xilalka siyaasadeed soo qabtay hogaaminta hay'adaha dowladda soo samaray iyo dadka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ama xilka maanta haya amba isla bixi baad qaban doontaan oo hamiga ku jiro meel ay ku wada kulmi karaan waayo-aragnimadii hoggaanka dadka soo qabtay lahaayeen ay ku soo fadhigi karaan lagala doodi karo dadkuna wax ka faa'iidaysan karayaan ma ahan meel runtii system hore iyo mid jooga iyo mid imaan doona intaba opposition ku ah oo mucaarad ku ah wax looga sheegayo mana aha wax personal attack qof loogu sameynayo qofku markuu halkaan imaado wuxuu ka hadlayaa waxay tahay waayo-aragnimadiisii iyo waxa maanta ay la tahay iyo talada uu bixi lahaa intaas waxaa u malaynayaa haddaan dhammaanteen si saxa wada qaadano waxaa awoodi kara jawi lagu diyaarin karo hoggaanka biri imaanaya dalkaani iyo sida uu noqon lahaa adiga haddaad biri danaynaysa inaad dalkaani uun xil ka soo qabatid meel uun ka qabatid haddii dad kaaga horreeyey boosashanka aad maanta danaynaysa inaad qabatid ay kula wadaagaan waxa meesha ka jira iyo caqabadaha jira iyo qaabka loo xalin karo way kaaga sahlan tahay wayna runtii ka fahmi og tahay haddaan wax xog aan ka helin waxaan rabaa mar labaad ma saddex inaan mahad celiyo runtii wasiir maxamed mukhtaaro topic maanta taagan dalkan u baahan yahay dad badan ka yeesho noo soo diyaariyey soona bandhigay waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano aragtida wasiirku soo bandhigay kuna dhisno waddankan iyo si aan horumari lahayn mar labaad iyo mar saddexaad mar badan inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo waqtiga qaaliga aad soo bixiseen ka samadoon ahaan waxay naga go-an intii karaanka iyaga inaan barnaamijyada noocaana oo kala duwan aanu qabanno samadoon leadership forum waa mid ka mid ah forumyada ay samadoon ay qabato forumyo kalaa jira oo aanu qabanno qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha dhalinyarada qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha haweenka qaarkoodna issuega mar walba taagan oo dalkan u baahan inuu ka doodo lagana yaabo intaas oo forum aan shaqaynaysa si uga duwan yihiin bay ka hadlaan waxaa kaloo jiro barnaamij kale aan qabanno oo aanu rajaynayno ay ka mid yihiin workshopyo seminaaro trainino iyo professional diploma oo bulshada Soomaaliyeed aan runtii hada jeer ku wacyigelino ujeedkuna uu yahay si lagu gaari lahaa dal nabdoon oo xasiloon iyo ummad horumarsan intaan dhammaanteen wada rabno waxay tahay qof kastaba wuxuu rajaynayaa oo jecel yahay inuu horumar gaaro nabad oo ku noolaado reerkiisu ay nabad ku noolaadaan mustaqbal fiican iyo horumar fiican oo gaaro taana waxay ku imaan kartaa inaan gacmaha isqabsano waxay noo dhexeeya khilaafaadka runtii isfahmowaaga muddo soo jiitimayne inaanu xallisano annagoo Soomaaliya wada hadalno miiniskii iyo wadooyinkii loo baahnayne
haddaan naqaana inaan abalaay garayno aanu ku dabaqno noloshayna haddaanan aqoonina inaanu baranno samadoonna waxay u taagan tahay inay arrintaasi fasilitay garayso mar walba waxay keenaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo islaamnahay arrintan wuxuu ka iftiimi karaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.